كبريا اسكدا فراك خد الصيا siyaasadda macnaheeda waxay tahay qofku wuxuu rabaa inuu iska dhaho laakiin dulqaadkeeda waa inuu lahaadaa qofkaasi waxay doonaan ay iska sheegayaan laakiinse qofkii aniga far igu soo taaga aniga uma dulqaadan kara midaas ma garatay marka xoogaa aniga xasaasiyaan iska hayno haddana waad iska bixi kartaa adiga goofinta raaw maaha shankar raaw waay dadka madaxda oo magaca leh markii laga soo taga maane dadka noocan oo kale aniga magacooda maba xasuustaba meeqa jarayaan taas kuu sheegayaan adiga hadeertaan walaalkayga halkan ma jooga isaga markaan hela maaragtay anigaa soo wareejinaya marka adiga meeshaan iskaga tag orta taqaanaa ganacsiga ay faamilkeenna ku jiraan waa in dadka akhlaaq darrada ku socda akhlaaqda la baraa walaalkaana akhlaaq darro ku socdaa waa in xoogaa edebta loo soo celiyaa يا أخلاق بايلال أخلاق إرجع سبات بكسر العلن يسافر هذيك هاي وحن مغلق قبل هذا اللي بعد نن إني لبح حسيت مركا تاسم هذيك أخلاق قتل ما مزادرتن مدك الواحد ما خلينا يزدش نك هزدرتي زين إسكتش هذا قبل ده سو كمان تحدريس إن هذيك شيء قال ولكن رقم محمد واو يقاني إلا يرانتي سمعنا قفكي عبسك قلينا سيج ما بضعفك وكسية marka waxaan ku dheelayaa adiga isku badnaa iyaataan adiga sidata baabaji yaad kale saadiga baabjiga waxa sheegaysa yaa waan sheeg bal sirano iga raalna waa fir sirano kale yaa waadana ma dhacday magaciga ma taqaanid miyaan sheeg ani magacyada madaxda bisaanaga dadkan magac lahayn magacooda ma xusuusan karaan wariyo cidda la hadlay saadiga ma taqaanaan sheeg emela tirmatulu xilibaan tirmatulu ayaan hawriya laakiin marka hore tiri daanyarana hey يا تانا دي قولي ايشك waxaana ay qofka walaalkaa saldhigga u jiidi doona tuugada soo dirtana hore u soo gara berritana adiga aniga wariya baus ahlow jota sarkar walaalkaa xabsiga muxuu ugu jiraa ii sheeg jota sarkar kiisila iska caadiya waay laba maalin kadibna waa soo baxayaa baasiga ahma suuriya shaqooyin maliibada gacanta kaa sarna maxay tahay marka sababta shaqooyinkii reer faraha oo la galayseen beerahaas waxa ka bax caleeshaah ma aha miilood waryaa kookiin inay tahay haddaba la soco doqonnimadaada darteed annaga badeec 3 milyan joogto beertaas inay noogu xayiran tahay adaana mas-uul ka ah nasiib ayaad leedahay qof ogaaday ma laha meeshaas kookiin inay noogu baxdo markabka goordhow dhanka mexico ayuu u dhaqaaqayaa qolooyinka heshiiska badeecad way keeneen taada maxaa ku dhacay هن هو اللي كنا يا sarkaar iyo aamin waa la keenaa balan haddii aad keeni weysay jaaja aqoon buuxda oo leedahay sama waxa kugu samay karo 4 maalin gudahooda 2 maalin gudahooda badeecadaas dhirta waa in laga soo jaraa si dhaqsi leen ay nagu soo gaartaa aysan hayso ma anaga toos meesha u imaanayno jaristan waa bilaabayna سيدي اها سيدي ادنا ماشي انا اسك جوجتا يا اخي ولا شيء غوري كوغو سوغيسا اصحاب مغعي waa Steve Raj ciidamada khaaska aan ka tirsanay aniga markii guurisan ku arko waxaan rabay qoortinan ka qabtoon ku jiida kadib meeshaan ka kaxeeyo aniga ma doonin qaybtaada xun familkan u muujiyo aygana ay ka xumaadaan marka jiibta banaanka talaas nabadgeliya ku raac ya akhi doctorku wuxuu dhahay laba maalin kadib waa ay dhalaysaa marka cunugayga adeerkiisaan ugu qariyay ya akhi macquul ma tahay dartiisan meeshaan u maadani asigana garabkayga taagnaada meeno walaaluhu waa markay isgarabsadaan maskaxdeedana way deganaanaysaa waa saxanta ya akhi adiga sidee ma dhaqaaqna labadeena shaqo aanan dhammaystirin ayaa halkan weliga taan soo hadal hadiyad qalayaan ku keenaya jaaja hadiyadda maxay tahay daaku maharaj daaku oo nool ayaan ku keenayaa meesha maxaa geeyey xabsiga boobaal inuu ku jirayay ahayd laakiin meeshan oo iga soo horbaxay asagoo dhimanayo ma aragtay wadnihiisoo dhaqdhaqaaqa joojinayo ma aragtay way u dhammaatay jaaja weliba 10 daqiiqo gudaheeda noloshiis waan soo abjarayaa sidaad moodid uma fududa bablo ninkaasna seefoo kale laguma dili karo ee karti ayaa loo baahan yahay iyo awood ciidanna kuguma filnaanahay qaab ayaa loo baahan yahay adiguna ma ahane qofka ka hortagayo waa aniga biyo ma rabtaa ها مدن ها samba 2 dhoob oo biyo dhaqso u buuxi
dhibic biyo iyadoonse kaa daadanin haddii aad wareeggaas la marto weliba daqiiqad gudaheeda aniguse markaas waxaan kuu ballanqaadayaa muddo bil ah inay tuuladiina inay biyo helayso anigoo aan marnaba shaqayn laakiin dhibic biyo haddii ay dhulka taabato bax maxaad tiri ma maqlaynin Rolex igu celi Rolex mudanayde laga bilaabo maanta waayahay mudane iyo waan ogolahay mudan oo keliya leedihiin Mivent waayahay mudane libaaxa duurka ku nool haddii uu gaajo u dhinto ugaarta kale gaajo ayay u dhammaanaysaa war boqortooyadeeda inaan dhiso darteed imise sano ayaan u noolaa 70 sano waa lagu sii socdaha oo malaynaa nolosha sideedaba waxay u baahan tahay dadaal iyo maskax anigana hantidan iyo magacan awowga iyo aabbahay ayaan ka dhahlay magacayga waa Rolex waqti walbana anigaa garle weligay anaa halkan ka talinaya halkan keliya maahani ilaa dunida amarkayga ayaa la qaadanayaa maanta laga bilaabo waxaan idiin sheegayaa ninkaas madaxiisa ninkii ii keena gacanyarahayga qaaska ayaan ka dhigayaa waadnii taqana hadalkiinana marnaba la gambanin wax walbana waan ka dhabaynayaa studio Famcoach Mogadishu rugcadaagii raam jaran oo mar kale soo rogaal celiyo bal aan isla aragna maanta iyo wax uu inoo wado akhyaarteena qaaliga waa mar kale iyo leeska aflaamta oo aan uga hadalno aflaamta maantana waxaan kaga hadlaynaa filim lagu magacaabo Game Changer oo uu wado raam jaran filimkan waa filim Telugu waxaana lagu wadaa in la sii daayo 10 Janaayo 2025 waxaa hogaaminaya aktarka weyn ee raam jaran waxaana la wado atriishada caanka ee Kiara Advani soo saaraha filimkan waa shirkadda weyn ee Sirifin Taswara agaasimaha filimkan waa S Shankar filimkan waxa uu ku saabsan yahay raam jaran oo sarkaal daacad ah oo la dagaalamayo nidaam musuqmaasuq oo ka jiro dawladda isagoona ku dadaalaya inta uu hawshiisa ku guda jiro inay dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ku saleysan sidoo kale inta uu hawshan ku guda jiro raam jaran waxa uu ogaanayaa aabihiisa oo isagana dhanka kale kala dagaalamayo kheyraadka biyaha tuuladiisa filimkan waa mid xiiso leh oo ku saleysan siyaasadda iyo cadaaladda filimkan waxaa markiisii hore la qorsheeyay in la sii daayo Christmaska ama ciidooda 2024 ee sanadkani balse dib u dhacyo dhanka farsamada ee ka imaaday ayaa hadda waxaa la filayaa in la sii doon doono 10 Janaayo ee 2025 filimkani durbaba guulo badan ayuu ku gaaray iibka tigidhada ee Mareykanka in ka badan 10,000 oo iib tigidha ayaa la iibiyay taasina waxay muujinaysaa xiisaha weyn ee filimkani loo qabo filimkani Game Changer waxaa la filayaa inuu noqdo filim dadweynaha oo aad u soo jiito dhanka taageerayaasha raam jaran iyo dadka aadka u xiiseeya filimada ku saabsan siyaasadda iyo cadaaladda idagayso labadeena hal tiim haddaan noqono ka waran ya aniga lacag ayaan rabay waana helay lacagtaas adigana waxaad rabtaa konteenaradaas daawooyinka wasaqda ee ku jira inaad baaba'isid soo maaha adiga waxaad rabtaa konteenaradan inaad la wareegto ood baaba'isa gaclisadana laguu soo daayo balse labadoodaba haddii aan kugu wareejiyo aniga maxaan kaa helaa aniga sidaydaba weligayga dad farii wax kuma siinin ma fahanta hadalkayga sadaqa weligay ma bixinin waan necbahay midda kale ii sheeg aniga maxaan kaa helayaa ii sheeg dhaqso hadal maxaad la aamusan tahay hadal Arjun okay go'aanka qofka gaaray waa aniga haddaba adiga waxaad rabtaa Martin dunidan inuu ka zuulo soo maaha waayahay gacantaada Martin ku dil dunidoo dhanna ka baabi'i
maanta dambe in la maqlo anigaba diyaar uma ihi ayaan ku dhahay ma fahamta warkayga sida ugu dhaqsiya badan maanta sheekad soo afjar